halkani waa idaacadda habar dugaag oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha geesaha dhaadheer iyo kuwa suulasha qorofan leh kulanti wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan qodobada aan idinkugu hayna barnaamijkana waxaa ka mid ah libaax oo ugu baaqay bisad iyo jiir inay ku soo laabtaan miiska wada hadallada midowga xasharaadka oo ku baaqay in gargaar naf iyo maal lala gaaro aboor kadib markii fatahada la tageen dudumihii uu dhisay in ka badan 8 milyan oo digaag ayaa u dareeray goobaha codbixinta iyo muranka ka dhaxeeya musmaar iyo alwaax oo aad u sii xoogaystay balse marka hore warkii dunida iyo saaxiibkay lama arag mahadsanid lama maqal libaax ayaa ugu baaqay bisad iyo jiir inay ku soo laabtaan miiska wada hadallada kadib markii lagu guuldaraystay wada hadallo socday in ka badan 8 bilood libaax waxa uu yiri dagaalka oo sii socda ayaa wuxuu keeni karaa burbur iyo barakac hor leh waxayna dharbaaxo weyn ku tahay dagaalkaas oo sii socda beesha habar dugaag annagu waxaan taageerinaa buu yiri wada hadallada ka bilaaban doona waddankaasi hanqaraara taas oo lagu doonayo dadaalkii ugu dambeeyay ee laysu horfariisin lahaa bisad iyo jiir oo dagaalkoodu yahay mid aad faraha uga baxay toddobaadkii tegay ayaa dagaallo lagu hoobtay waxay dhex mareen bisad iyo jiir iyadoo la sheegayo goobihii la isku farasaaray inay la wareegeen bisad jiirka aalaaba wuxuu ku eedeeyaa libaaxa inuu garab siiyo bisad libaax ayaa soo jeediyey bishan dabayaaqadiisii in loo diro ciidamo nabad ilaalinna xuduudda bisad iyo jiir ciidamadaasina waxaa si toosa u taageeray maroodi shabeel haramcas guduudane weer oo ay ku tilmaameen inay tahay tillaabo horumar leh in ka badan 8 milyan oo digaag ayaa u dareeray goobaha codbixinta waana doorashooyinkii ugu horreeyey ee laga qabto digaaga dhexdiisa waryaheena nooga soo warramaya magaalada caasimadda oo Rangu ayaa sheegaya inay digaagu aad iyo aad diyaar ugu yihiin inay codkooda dhiibtaan masaatee warar hoose ayaa la sheegayaa inay dhici karto in lagu shubto ra'iisul wasaaraha dhurwaaga ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado hadalka ka soo yeeray libaax ee tilmaamaya inuusan dhurwaaga ka mid noqon karin xubin ka tirsan golaha ammaanka ee xawayaanka dhurwaagu waxa uu yiri xubin noqoshada golaha ammaanka ee xawayaanka waa mid u taala dhurwaa ee ma ahan mid libaax hor taala ana loo baahan yahay hadalka ka soo yeeray libaax inuu raaligelin ka bixiyo wariyaha iyaga nooga soo warramaya koonfur galbeed ee dhurwaa ayaa sheegaya in cilaaqaadka libaax iyo dhurwaa baryahan dambe ay aad u sii xumaanayeen halkaad warkaasi kala socda